marka ugu horeysa ilaah baa mahad leh mahaddaasoo ah maadaama aynu kulan ilaahayna ku kulansiiyey xafladda qiimaha iyo qaayaha leh ee ardayda sanadka ka baxaysa jaamacadda iyo innagoo dalkeenu maasha allah nabad ku sugan intaa dabadeed maanta waxaa jaamacadda Addis Ababa Medical University ka baxaya arday ka kala socota kulliyadaha kala duwan ee jaamacaddu ka kooban tahay jaamacaddu waxay qayb libaax ka jirtaa soo saarista dhalinyarada caafimaadka barata waxaana weeyaan difcaddii 15aad 15ka difcadood waxay soo saartay arday aad iyo aad u fara badan oo aqoon iyo xirfad sare leh bulshadana si fiican ugu adeega maantana meel kasta aad joogto dalka waad ka helaysaa qalinjabinta maanta ardayda jaamacadda markii ay culumtii loogu talagalay ay dhamaysteen iyaga oo waliba ay u dheer tahay muddo dheer oo ay practical ku soo jireen oo ay dhaqaatiirta dalka ku soo qaataan practical ku soo qaataan si ay barito markay bulshada u adeegayaan ulan jaan qaadaan ayaa waxa ay muxuu ahaa markay wax walba dhamaysteen oo practical dhamaysteen haddana waxay galaan imtixaan guud oo ka dambeeya taas si ay makarasa oo ay u qalin jabiyaan intaa dabadeed kadib waxaa markaa loo salgareeyaa qalin jabintooda loo diyaariyaa in ardayda waxaan leeyahay nasiib baad leedihiin maadaama aad muxuu ahaa aad ku takhasusteen ama aad barateen xagga caafimaadka mid baa muhiima haddaba maanta shahaadadii koowaad baad haysataan aqoontuna kuma koobna shahaadadaas keliya maantana dalku wuxuu socdaa meel kastoo la joogo horumar iyo waxbarashadii oo meel fiican maasha allah maraysa waxaa laydinka baahan yahay haddii fursaddii muxuu ahaa aad ka faa'iidaysan kartaan inaad halka ka sii bilowdaan oo idinku joogin oo keliya shahaadada koowaad aad qaadateen sidaad ogsoon tihiinba jaamacaddu waxay xiil la leedahay jaamacadda jiima dalka Ethiopia jaarkan oo dawli ah halkaasoo maanta ay muxuu ahaa masterka shahaadada labaad ay ka bixino Hargeysa taasina waxay fududeysay ardaydii taraafariij lahayd ama aan waqti u haysanin inay muxuu ahaa dibadda ku aadaan maanta jaamacadda waxaa ka soo baxay jiima arday ilaa 200 ku dhow haddana way ku jiraan sanadkii dhaweysana waxaa ka qalin jabiyay 330 arday macallimiinta jaamacadda badidoodu iyaga oo jaamacadda dhigaya oo Hargeysa jooga familiyadooda jooga ayay iyaguna ka qalin jabiyeen idinkana waxaan ku tartaamayaa markaa inaad jaaniska qiimaha aad ka faa'iidaysataan intaa dabadeed maadaama aynu dal kooban nahay had iyo jeer waxa la yiraahdaa shaqo la'aan baa laga cawdaa maanta xirfad baad leedihiin maasha allah oo aad muxuu ahaa barateen xirfaddaas aad barateen in maanta caasimadda kale la isugu soo ururmo wanaagsana waxa wanaagsan gobollada degmooyinka inaad dhulkaas aad tagtaan oo idinku aad shaqo abuur samaysaan si aad bulshada ugu adeegtaan midda kale waxaan idinkula dardaarmaya mar walba ku soo celiyaan inta xitaa aad shaqadii aad baratay helayso shaqo walba qabo oo muxuu ahaa fadhiin voluntary ku shaqee adduunyada qofka voluntary ku shaqeeya ayaa mudnaanta koowaad la siiyaa taana waa idinkula dardaarmaya waxaan leeyahay haydinka muuqato aqoontii aad barateen iyo muxuu ahaa aqoonta aad barateen haydinka muuqato oo maadaama aad berrito u adeegaysaan aad beeshin u adeegaysaan beeshinku xuquuq buu idinku leeyahay waxaad arkaysaan xanuunadoodii rikoodhkoodii taasna waxaa laydinka baahan yahay inaad sirtooda ilaalisaan waana idinku waajib haddii kale waxa weeyaan aqoonta aad barateen waxay noqonaysaa wax dhaawacan anugu waxaan ku kalsoonahay maanta ardayda halka ka soo baxday meel kastoo ay tagaanba marka ay shaqo helaan waxaan aaminsanahay oo ku kalsoonahay in had iyo jeer la yiraahdo xagaad ka shaqeyn jirteen sababtu waxa weeye marka hore jaamacadda si fiican loogu tababaraa
practical farabadan ku qaataan kadibna dhakhaatiirta cusbitaalada aan xiriirka la leenahay oo ay ka mid yihiin Amal Grant gargaar specialty iyo Royal Hospital ayay ku qaataan kadibna waxa weeyaan muxuu iyagu aqoontii ay soo barteen practical u raacsan yahay ayaa dadku had iyo jeer waxay yiraahdeen meelaha u shaqo tagaan waxay u qaataan inay shaqaale ahaan jireen taasina waxa weeyaan dadaal ay jaamacaddu ka shaqaysay oo had iyo jeer maadaama jaamacada lagu xanto la yiraahdo quality ma laha annagu waxaanu kaga duwanahay inkastoo jaamacadu maanta wax badan iska bedeleen waxaan ku dadaalaa maadaama ay ku biirayaan qaybta muxuu caafimaadka waxa la wixii muxuu duruusa practical kama shahaadno qof aan practical qaadanina dheerna nagama qalin jabiyo taasi waxay muxuu abuurtay sumcad aan bulshada dhexdeeda ku leenahay waana taas ilaahay mahadi iyo dadaalka jaamacadda iyo maamulka iyo macallimiintaba inta marka ka gudbo hal dadaan baan siinaya hadalka waan ka baxayaa maadaama aad caafimaad barateen waxa weeyaan patient baad la kulmasaan maanta waad ogsoontihiin oo qabyaaladdu heer bay maraysaa وإنها كحرويدان قبيلته تاسبين الجزميسو وكانسر إن كل حجرة لو ما نباهنا مركا فضلا وحيقدر دارنا إن تانكا إسكا إلى لسان وحنوم هاد عليا ما دخلنا شرفت عليه وقت وقيمة السوسيسي يقدريسي هذه أدوم هالسنتين والدي كمان علينا وحنكلم هاد عليا والدكي soo baray ardaydan inta badan la soo dadaalayay iyo cid ka soo ka qayb qaadatay waxbarashadoodana iyaguna aad iyo aad u maasayin waxaan kaloo mahad kale u celinayaa macallimiintii oo dhinaca bidix fadhida oo ardayda heerka soo gaarsiiyay maanta la'aantoodna dhalinyarada quruxda badan ee aynu horbaaqaati ka wada nahay halkaas uma imaadeen waxaa ka mas'uula dhakhaatiirta iyo macallimiinta heerka soo gaarsiiyay iyaguna aad iyo aad bay u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu محمود حبيب أسكر مدعونا جامعة ديساو ميديكال يونيفرسيتي أبيات أيومات سيها بلدنك مدحنا جامعة يحبت كوادين جامعة ينقصي سعود ورا مركن وحان فرصة نسين دورا محمد عبد الله shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay